kani waa dhismaha masjidka weyn ee qadiimiga ee Harawey ku yaala Faras-magaalaha magaalada Booramo oo xilligan maraya meel gabagaba. Dhismaha masjidkani ka kooban 5 dabaq ee saaran ayaa dhismihiisu waxa uu socday 2 sano u dambeeyay. Maanta ayaan boqoshaan ugu kuurgalayay shaqada ka socota dhismaha masjidka aan ku tagay, waxaana mid u soo arkay qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay. Masjidkan oo noqonaya masjidka ugu weyn ee laga dhisay deegaanada Soomaaliland ayaa hadda waxa uu marayaa meelihii u dambeeyay. bilaha soo socdana waxa la filayaa in si rasmi ah loo daahfuro bulshaduna ay ku tukan doonto. intii aan joogay dhismaha masjidkan waxaan halkaas kula kulmay Sheekh Shiino oo kamid ah guddiga gacanta ku haysa iyo waliba injineerka u xil saaran dhismaha masjidkani. injineer Maxamed Araale waxaad kamid ahayd injineerada gacanta ku haya dhismaha masjidkan ee Harawey ku yaala Faras-magaalaha. deeminka oo la socona dhismihiisu waa masjidka ugu weyn ee ku yaala deegaanada galbeedka si caynkan oo farshaxana loo dhiso. bal dhismaha masjidka anaga iyo daawadayaasha bal xog naga sii muddada aad wadeen iyo qaabka masjidkan aad ku dhisteen. horta aad baad maasantihiin LTV soo booqday goobtan ka wadno shaqada masaajidka. masaajidka horta wuxuu ku bilaabmay qaab ma fahantay aan balaankiisa aan aad uga fikirnay anagoo soo baarnay baahiyaha ay bulshadu ku qabto masaajidda kale sida samxadda dadku markay degayaan masaajidka ka waxaan u sameynay staircase ama jantar aad u weyn oo aan uga baahi tirnay bulshadii soo deglaheed ama masaajidkii ku cibaadsan lahayd. kolka bilowga masaajidku wuxuu ku bilaabmay baahi dadweynuhu ku bilaamo waad ogeedeen in wadada laameydeen masaajidka ka martan dhanka galbeedka in lagu tukan jiray. bulshada gobolka isku tashatay iyo kambaniga oo dhisaan fiican ugu abaalguday bulshada isku tashatay ay ku bilaabeen masaajidka. masjidka waan la soconaa inaad nidaam caynkaas oo baahi loo qabay dhismihiisa lagu hindisay. mise dabaq ayuu ka kooban yahay masjidka? masaajidku wuxuu ka kooban yahay haddaan qaabkan ay ama afkaas ku aqaanaan injineeradu waxaan ku hadlo masaajidku waa G+4 yani waxaan ka wadaa ka hoosay iyo 4 dabaq oo sare. masaajidku wax lagu tukanayaa waa G+3 baa la yiraahdaa. G haddaan Soomaaliland ku fasiro waa ka hoosay iyo 4 kale oo sii saaran. oo maanta la soo booqday aad baad mahadsantiin. muddadii masjidku bilaabmay ilaa imikana la shaqeynay saxaafaduna meel weyn ay ka qaateen oo khayr Allah siiyaan leenahay oo waxay u gudbin jireen hadba meesha uu marayo iyo baahida taagan wayna ku mahadsan jazakallahu khayr baan leenahay. maantana tu lamida bay sameeyeen. waxaan insha Allah taala rajaynaa in masjidkan laba shaqeeyaano wixii maanta ka dambeeya magaalo xumanayo waa masjidka ugu dheer geeska Afrika noqonaya. waa 5 dabaq. Soomaaliya ma jiro, Itoobiya ma jiro, Kenya ma jiro, isaga ugu dheer. إن شاء الله تعالى جبت واحد علامتها حاجة جديدة مسجد محمود مسجد إن شاء الله إحنا رجعنا نقول علامة دي بورنا المركز تو لصقائه أما صحافة قاعدين نقول دون بإذن الله الكريم. إن شاء الله تعالى كل مسجدكو وحو صوص سعودي لبس سنة هي صدح بلاد مالين لقمة فريزان وشقاد الحمد لله سيف عمين هو سقوطي. المسجد كسيستان كيسو ومسجد إن شاء الله تعالى بلارن oo ka duwan masaajidii caalamka oo kala ka dhignay. wuxuu yeelan doonaa biidnillaahi kariim masjidka waa 5 dabaq. dabaqa ugu hooseeya wuxuu wataa weysooyinkiisii qurfooyinkii dabaqadii maxaa la yiraahdaa wuxuu leeyahay qolalkii loogu talagalay kii security-ga, wuxuu leeyahay qolalkii martida, wuxuu leeyahay meel insha Allah taala maktab loogu talagalay dadka xajka tagay lagu nidaam gareyn doono insha Allah taala. kadibna wuxuu leeyahay dabaq sare lagu tagado ka saddexaad wuxuu yeelanayaa insha Allah weysuulaya dabaq walba laba dabaq weysaan u sameynay. insha Allah qaybtan ugu sareysan taagana waa qayb loogu talagalay waxbarashada diiniga oo dadku diinta inay ku bartaan baan ugu talagalay maadaama suuqii la joogo oo in gelinka dambe dadka habeenkii wax dhigtaan gelin dambe wax dhigtaan baan ugu talagalay. xoogaa lacag oo badan waa la iskaga baahan yahay marka insha Allah ninkii wax ku darsanaya walba waa lagu daray inaad ku darsadeen insha Allah yar rajaynina. maxaa yeelay masjidka wax lagu darsado waa sadaqa jaari weey oo nabigu salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa ku tilmaamay sadaqada jaariga. sadaqada jaariga waxa kamid ah miskiid wax la gashaday wado wax la gashaday. marka insha Allah waxa rajaynaa dadku inay wax ku darsadaan insha Allah saasaan ilaahay insha Allah biidnillaahi kariim. sidaas si lamida waxaan dhismaha masjidka aan kula kulmay xubno uu kamid ahaa xogayaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid gobolka Awdal oo soo booqday dhismaha masjidka Harawey waxaana bulshada kala duwan islaamka ay ku baaqeen in laga soo qayb qaato gunaanadka dhismaha masjidka Harawey. wadada lagu tukan jiray oo aan masaajidku aad u koobnaa dadku ay aad uga badnaayeen oo xataa dadku ay riski ugu jireen
in baabuurta ka imanaysa koonfurta magaalada ee kuwa soo karaaraan ama ay halis loo geystaan oo dadka laga joojin jiro traafigu iyo ka abaalmariya ka joojin jireen inta salaada lagu jiro laakiinse maanta alxamdulilah haddii masaajidkaasi noo dhammaado waynu ka raysan doonaa masaajidkaasi waa 4 weeyaan iyo xagga soo jaamacad weeye waxaan aaminsanahay inuu baahi weyn dabooli doono baahidii jidka lagu tukan jiray in maanta ay dhammaanayso laakiin intaa dhiman ummadda islaamka waxaan ka codsanaynaa oo ka baryaynaa ka tuugaynaa ilaahay idinka abaalmariya waxa way waalidkiinoo dhintaadu u sadaqoon ka niyoon kartaa ubadkiinu ilaahay idinku barakayn karaa iyo hoos waan koray xagga sare waan tegey ilaa hoos waan maartay waan soo wada maray masaajidka marka dardar xoog leh ku socotaa waa gabagabadii intii u dambaysay marka dadka muxsiniinta ee wax bixiyo waxaan leenahay waa masaajidka waa intii u dambaysay ku soo darsada masaajidka saabri ha kaaga dhamo wax ka dhamaanaya maaha waa qalka ilaahay waxaad ku darsato wax ka dhamaanaya maaha muslimiinta ana si guud waxaan leeyahay ka soo qayb qaatay masaajidka waa gabagabo meel fiican buu marayaa inta hadayna sida inta hore weeynaga inuu dhisnay nagu buu sugayaa marka ka soo qayb qaadano aan gacanteena jeebadaha gelino waxa weeye waa masjidkii ilaahay waa meeshii lagu cibaadeysanayay sadaqadu waxay wanaajisan mooyaan waxba ma xumayso malka waxaan ugu baaqaynaa bulshada inta dhimanna waxa weeye inay si fiican uga qayb qaataan si kastaba haatee dhismaha masjidka Harawaya waxa uu ka mid noqonayaa masaajidda ugu waaweyn ee laga dhisay deegaanada Soomaaliland waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Ariel TV Boorama